Soomaalidu qab iyo kibir marna qaadan mayse Soomaalidu qab iyo kibir marna qaadan mayse waxaana la ka qaban waayo qarqarsiga ku jooga mayna qof saclayo qaar kaloo kalito u qaarabanaya Soomaalidu qab iyo kibir marna qaadan mayse Soomaalidu qab iyo kibir marna qaadan mayse waxaana la ka qaban waayo qarqarsiga ku jooga mayna qof saclayo qaar kaloo kalito u qaarabanaya بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقاق ما أنت ميلادي قول عمرتي وياهي 19 بشي أغسطس 2019 هلك ساعدنا وحي سوى حنق جابة بالروسين كايدي قتي 20 كي تهرنمو أو نص ساعة من حقاق برنامج كنا وحل يراه ذا فعل قاون إيو فايل قرصون وبرنامج أننا بعادي هين وحي جرب فرديا oo daawadayaal dhageystayaal aad aragtaan waa Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax oo maanta waraysi la yeeshay Ilaahay baa mahad iska leh Cabdikariin soo dhaw nafti hore dhaka weyn media ku soo dhaw waayahay Cabdikariin Sheekh Muuse waraysigeena inoo bilaabaya horta marka ugu horeysa anigii ku hadlaya afkii Cabdikariin yakaygiiba waanu idin salaamay markii hore ma soo salaamay waayahay Cabdikariin Sheekh Muuse dad badan baa ina daawanaya أبو أنيرنا يا عبدالكريم شيخ موسى قلب نجح أو وظف فدينا وحنو ملايين يا هوري لو ما أعرف حاجات حد بقى حاجات كلها لطي عبدالكريم شيخ موسى وبلدك إسبرية أوران ماي ومدة الصومالية وإن يقانا اللي بدين به واللي بقى بيكون يقانا نضيقة قاربة واللي يقانا كباها حرة النمبر كود كسو جدب عبدالكريم شيخ موسى كسمعي اللي تشوفنا والنوت مد لبها بين بدنا تشوفتي هذا أنا خلطانين أبو صدق حاجات كتمت waxaan rabaa horta adoo mahadsan abaan dhiirin su'aalaaga waan ka jawaab insha Allah waa gartay su'aal aan adigu weydiiyo haye i weydii aniga baa lagu qaadqaaday dhiirani ma abwaan ba mise horta waa wariye saxafiya waa alla su'aasha maxaan u baahnaa cidi weydiisay Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagaxo naftii hore horta aad baad mahadsan tahay anigu dadka qaarkii horta filosofer bay igu yeeraan mar saxafi baan ahay macallimiinta qaranka waan ku jiraa oo boosaasiya kamid ah meelahan wax ka dhigay in badan baan macallin soo ahaa abwaaniinta qaranka waan ku jiraa saxafiyiinta qaranka waan ku jiraa ilaahu wadaan jilayaasha waan ku jiraa dhakaweynayaasha waan ku jiraa iga laagu leeyahay soo wada garan waayay su'aal kale yaadaysa su'aal kale ku weydiiyay adigoo maasan waxaa la yiraahdaa media-haaga media dhakaweyne media dhakaweyne media maxaa la baxday dhakaweyne maxaa uga jeedaa niyahow horta dadkii madaxweyne doonayaan inuu iska wada noqdo markaan anigu ilaa dhakaweynaan ahay waxay ka dhigan tahay madaxweynaan ahay waa madaxweynenimadii oo yar maldahan inta qof wali madaxweyne iska noqdo inaan madaxweyne reero rabaa markaan waxaan hadda tidhaahdaa madaxweyne madaxweyne baa kugu xanaaqay oo ku xidhi moogta marka dhakaweyne masaga igu qabsan kara hadda meel dhawda waxaan idhi Sayid Ahmed Maxamed Islaam waanu soo wadnaa dhakaweyne waa madaxweyne waanu soo wadnaa iga laagu leeyahay soo wada gar waayahay su'aalahaagii ma dhammaan haye ii soo daa war weligay ma arag nimaan doonaya inaan waraysto aniga igu bilaabo weligay ma arag isaga media-haagu bacda media dadku aad u daneeyo jecel yahay waxa laga yaabaa inay dad kugu soo biiraan oo hadda de waxa wata cameraman-kii dadyow kala kugu soo biiri kara shaqaalahaaga iyagana maxaad ugu yeedhi misaal gabdhaha kugu soo biiro media-haaga qayb ka noqdo ma dhakaweyne baad dhihi iyadana maxaad odhan dadka waxaana la yiraahdaa dhakaweyne group gabadha xataa waa dhakaweyne iga laac gabadha soo garan waaya aad u maadsan su'aashaadii aan ka jawaabo haye xageed ka waa su'aal fiican waxaan ka imid hadda jigjigaad ka timid jigjiga hadda ka imid aga Cabdikariin Sheekh Muuse jigjiga ka yimid alla siyaasadu cajiibsana waaya aad baad u mahadsan tahay waaya su'aalaha anoo goordu kuugu dari doona xagga halganka iyo bal meesha wax marayaan bal hadda xaggan reexamarka ana hadda ka yimid xamar waxaan ka soo maqnaay toddobaad dadkii reexamara waxay leeyihiin Cabdikariin Sheekh Muuse markii la qabtay maana qadayno maana quraan shacabka reer Muqdisho hadaan nahay sababtu inoogu iman lahayn wiilkayagii maana garan bal taas ay dambaysay su'aasha kale waayahay yaa ku qabtay horta Cabdikariin Sheekh Muuse waa la qabtay dadku maqleen
bal cidda ku qabatay bal noo sheeg yaa ku qabtay oo ku dhiibay oo Itoobiya ku dhiibay horta waa kala laba waxna waa qabashadii haye oo iyada lafteedu waxay yeelanaysaa dad badan oo qabashada yaa soo galay dhiibiduna waa gaar haye qabashada waxa iska lahaa ciidan nabad sugid oo ay leedahay dawladda Soomaaliya haye oo joogay gaalkacay haye taliyayaashiisii baa amarka bixiyay haye nin la yiraahdo Farac Cadda iyo yaa bixiyay ilka Casa iyo niman saas yaa amarka bixiyay waan gartay iyaga waxay u ekaayeen amarka in laga soo siiyay xarunta guud taliska guud ee hay'adda sirdoonka xamar haye ay u ekaayeen qaabka ay u abaabulayeen markay qabanayeen waan gartay ciidan ma ahayn iska socday oo wax baarayay ma ahayn ciidan wuxuu ahaa qorshe iyo waajibaad sita oo abaabulan runtii aad iyo aad oo si dhammaystiran u socdo program la soo siiyay ku hawlgalaya absolutely taas waxay tusaysay in marka taliska guud ee joogay xamar hay'adda sirdoonku amar ka soo baxay inuu ahaa waxa laga dhanansan karaa hadalkii Sambaloolshi aad baad mahadsan tahay laakiin dibiddu waa wax gaar ah waan gartay aad baad mahadsan tahay cabdikariin sheekh muuse ma jiraan shakhsiyaad arrintaadii markii lagu qabtay wixii xamar ka dhacay waa la ogaa kolley adigana warku waa kugu soo duulay shakhsiyaad maanta halkan aad jeclaan lahayd inaad ka custo maadaama dhaka weyne media dad badan dhegaystaan ma jiraan ilaa wax abaal loo gal rag baa ugu fiican sidii ay arrintaada u wajaheen ama uga hadleen shakhsiyaad gaar ah oo diyaar carabaabi lahayd ma jiraan maanta wuxuu silahay ni horta dhinaca xun markii laga fiiriyo dhinaca maartay negative-ka dhibaatada wala yaqaanaa oo dad la xusaa uu ku jira kiiskayga haye laakiin xagga positive-ka markii la yiraahdo horta guud ahaan waxa shacabka la xus shacbiga Soomaaliyeed aad iyo aad oo u kala harin aad iyo aad marxaatib aan waa midishan joog Djibouti ilaa NFD meel kasta caalamka meel ka soo joogan shacbiga Soomaaliyeed waan gartay waa dadka ugu horeeya mar walba maskaxdeeda ku jirta runtii u tabiyo hambaliye iyo salaan ilaa haddana iyaga mar walba say jecel yihiin ee fiican ku shaqeeyo weeye waan gartay haddii la yidhaahdo shakhsiyaad kale oo waxtar ama dareenkooda way jiraan oo xuskar way jiraan maxaa yeelay aniga markii la qabtay ciyaal baa yaan lahaayoo ciyaal laba saddex qoys baan lahaa xaruura ii joogay ma sha Allah anigu wax dhaqaale ugama tagin aad bay u dayacnaayeen dad baa dhaqaaleeyay xamar bay ku dhex lumeen dad baa dhaqaaleeyay marka ugu horeysa hogaaminta ururka ONLF gudoomiyaha jabhadda iyo gudoomiyaha ku-xigeenkii maxamed Ismaaciil iyo maxamed Cumar Cismaan oo gudoomiyaha ururka iyo golaha dhexe jabhaddu iyo kaadarka howlwadeenka runtii aad baan ugu mahadcelinayaa tallaabo waxay qaadeen degdega oo ay kaga soo saareen ma sha Allah meesha ay kaga soo saareen diyaarad bay ku qaadeen heeri bay soo ururiyeen Kenya isugu geeyeen goob ammaan ay geeyeen ka dhexgala geysma gaagaxee gabadh waliba xaasaskaaga kamid ah Xamdi la yiraahdo hadii aan khaldanayn waxay qabatay mudaharaadyo oo iyadoo hogaaminayso magaalada ay dhex marayso yar maqaale igu ahayd mar kamid ma tahay xaasaskaaga Xamdi lama yiraahdo qabatay media shukri baa la yiraahdaa shukri Xamdi lama yiraahdo shukri Allah way jirtaa waayahay tallaabadaas waxay ahayd tallaabadii ugu horeysay cidii qaaday waxay ahayd hogaaminta iyo xubnaha iyo kaadarka iyo howlwadeenka oo u kala harin oo ONLF oo kala harin ma sha Allah sidoo kale dadkii xamar joogay deriska ahaa runtii waliba xaafadada deriska la ahaa iyo asxaab wanaagsaneyd oo aan wada deganayn iyaguna gacan fiican bay ka geysteen ciyaalkaygii sidii loo tabantaabin lahaa loo taakurayn lahaa loo geyn lahaa meesha iyagu codsadeen intaa kadib
marka xagga la geeyey runtii waxaa gacan aad iyo aad u wanaagsan ka geystay oo dhaqaale ku bixiyey oo dib u dejin u sameeyey maamulka Jubbaland gaar ahaan madaxweynaha islaan ma sha Allah ma sha Allah markii halkaa la geeyey laba qoys oo meesha iga joogtay labadaba mid walba lacag fiican oo ay waqti ma sha Allah kaga baxeen ma sha Allah إلا وأقول أبوه نور يهاي. كنت بقول دقالين هي سيدا أقونتي. أن كان حق الجيش ما جاكحه. عبد الكريم شيخ موسى هذا الكيس هذا ماشي سال الله ترى. ما قارني جاني وما يسقي تلقي شجلايو برومه حروبه كي عيب دين هلاها كقيل من أبا. ما قارني جاني وما يسقي تلقي شجلايو برومه حروبه كي عيب دين هلاها كقيل من أبا. markii lagu qabtay Hargeysa dhulgariir kama dhicin laakiin Muqdisho dhulgariir baa ka dhacay Hargeysa naftood horayaal jabhadda oo aan ka tirsan bay Itoobiya u dhiibtay haddaba intii lagu soo daayay Hargeysa waad booqatay oo Soomaalidiida naftood horayaal la dhiibtay markii lagu qabtayna aan ku dagaalamin maama Muqdisho oo ku dagaalantay maxaa ku ilowdood iyadoo ku abaal dhacdo u gaari weyday ilaa maanta horta meesha Hargeysa ka booqatay Hargeysa anigu waxaan u aqaanaa walaalaha Soomaaliyeed waliba dadka ugu Soomaali jecel inay Soomaalidiid yihiin anigu ma qarsani aniga taa ma diidantaa inay naftood horayaal dhiibeen naftood horayaasha Hargeysa waa laga dhiibay Garowe waa laga dhiibay Boosaaso waa laga dhiibay Gaalkacyo waa laga dhiibay Xamar waa laga dhiibay waan gartay meelo badan baa laga dhiibay waan gartay haddaad halgan ku jirtana ma weydid hagardaamo Sayid Maxamed baa wuxuu yiri barbaaxada cadowga waxa iiga daran dhanqariyada walaalka yani haddaad ku jirta halgan dirira waxaad yeelanaysaa cadow badan kuwa kula dhashay baa xataa waxaa la leeyahay shacbigii ehelkii dad qaraab ah la leeynay waan gartay oo laga dilay dad boqolaalan kun ah laga dilay waan gartay halka aan Soomaaliya wax qof iyo laba is adigu dhowr qof ka badan aan lagu bedelinba waan gartay marka يعني كوي أنا سمريني ميل والبا وحكودي لهيبة هذا جمعة يعني اسمه ده سنة هرجيسة مركو هاي قريب كم يدرك الصوماليات ودبعتوين كي هذا كهر حكومة دهور الصومالية بوقتي دتك وحكت تبني إنك صدقت دبعته بدن عيكو وضع دحنا هذا أنا ما بحردي هو وينه ماله أكيد حاجة ويا هاي هذا ما صدقنا حمر وهو يد الصومالية ضد هو ضد الصومالية وأدي أدو شعلها أدي أدنا أنو قدريه مر والبنا قلوب تيجي كتيرة وحقيقي مقتي لكن ضد حمر إن أنا هاي سنين فرصة أنكو بوقان كرا سببته حوي دولة دي حل جاس دولة دمشق شوك أنا قوتي ديبته عدو يديب يا ولي شوكته يا شوكته ولي أيضا أنا رجعت عدو يديبين أنكو تشرو أي هذانا وحيو شعب بديان إن أنا أرجع حس أسكر راعن ولا هو سيرة أبو فريسي رئيس الوزراء شرقدون كها مدحوين مان ديت بكايستين وحيجو آميين وعتكد جيستين ميديا وضركتين أرجع عبد الكريم شيخ موسى أرجع سوار أنت لقي يابي أرجع حساء عالميا لا شقين هاي بيدهن إلا حضر أنت اللي جري كمان بحنن marka aan ayaga meeshooda ugu tago macnuhu wuxuu noqonayaa si kale wax badan isu bedeli karaan marka anigoo ka xun inaan dadkii heer Muqdisho nolosha la qaybsan waayo dib u booqan waayo hadana duruufta ii diidaysaa taas ahayd laakiin hadana aan ku sheegay laba jeer baan tagay Muqdisho Soomaaliya markaan marahay taransi baan ku soo maray waan saragnay airportka dadkii joogay muddo aan badnayn baan wada joogay aan wada joognay oo intii lagu soo daayay taransi ku martay 16 bisha hadda ku jirno maanta 19 16keedii yaa soo martay 4 saac ee bar baan joogay airportka intii dadkii waan saragnay madaxdii airportka waan saragnay hay'adihii nabad sugidda iyo amniga waan saragnay Soomaalida waan saragnay dad dawladda ka tirsan oo baarlamaanka qaar kamid ah waan saragnay meesha markaan soo galay waxa la ii sheegay inay wasiir ku jireen kana bixin intaan ku jiray waan gartay waxa la ii sheegay in markii la igu ogaaday airportka inaan ku jiro oo deganahay oo muddo joogay waxa la qaatay qorshaha inaan saxaafadda soo gelin waayo waxa laga yaabana markay meesha intaan joogo in qoliyaha saxaafaddu yimaadaan waraysi iga qaadaan jaraa'id u bedelo waxaas laga yaabana marka waxa la ii sheegay ma aqaan xaqiiqadeeda
in la xiray airportka dhankii magaalada laga xiray la diiday wax saxaafada moobilada xataa in la baadhay intaasna waa la ii sheegay marka mar walbana salaam runtii iyo yaan u gudbinaya laakiin way ku go'anayaan dadka waayahay qasoodi wuu dhamaaday kay qalooc la tahayo annagu quusidiinay qasoodi wuu dhamaaday kay qalooc la tahayo annagu quusidiinay qorraxdii xornimadiiyo qaranniman haleelayo annagu quusidiinay Abdikariin Sheekh Muusow saddexaas baad leedahay saad noo sheegtay xaas waa xaggan iyo guri ceel bay ka soo jeedaan baan maqalnay xaas kalena xaggan iyo gedo gabadha kale xaggee ka soo jeedaa wallahi horta aniga saddexdayda xaasba waayaan waxaa la sheegayay dadaan Soomaali ahayn oo iyo dad ajnabi Soomaali qabtay waxba horta marka ugu horeysa saddexdayda xaas Soomaali ma sha Allah gowde hadiya marka waa dad wada isu dhadhow oo qaraabo oo Soomaali oo kala fogeeyay maxamed kala Jabuuti ku dhalatay haday Kismaayo ku dhalatay waayahay gabadh hadaba waxaan maqalay gabdhaha qaar baa xaasaska ugu tagay jeelka saddexdu ma kuugu yimaadeen misaqaan hal gabadh baa igu tagay waxa ilmihiima kuugu calool galay ma sha Allah waayahay ka gud dhaga weyn ma sha waayahay oo la yiraahdo nasri ilaahay soo barbaariyo tii dalka iyo dadka waa anfacda Allah ka dhigto meel cajiib ku dhalatay waayahay intaan lagu qaban Abdikariin Sheekh Muusow nin weyn baa tokor waayay waa wada indhaaliyo siyaasi baa tahay libaax aayarun dabin ku dhaca yaad iska noqotay libaax isagoo dalac la dabin u gala waa la arki jiray sideedu ogaan weyday khatar noocan oo inta la egina kugu soo fool leedahay mise waad ogeeyday qadar rabbi baa ahay waa maasanta niyo horta aniga khatartu markaa kale iguma cusbayn haye muddo dheer baan khatar ku soo dagaalamay oo khatarta la qabsatay khatarta laftigeeda baa wadaag la waa gartay marka waxaan ku talagalay dhimasho waan ku talagalay dheer naftayda ma maadinin haye dhaawac waan ku talagalay afoobo inaan gacmaha cadowga galo waan ku talagalay waxa soo dhan waxaan ugu bareeriyay hadafkii ujeedada inaan qadiyada ogaadeen ay ka xorowdo gumaysi oo ay hada shacbigaas ka tashato marka hadii aan inta wax ka badan aan taxadar sameyn lahaa waxa adkaan lahayd inaan hawsheeda si sax u guto adkaan lahayd waan ku talagalay wax dhiba ma igu mahayn oo waxa leedahay nin dhimasho ku talagalay qabasho kama badnaxaba waan gartay dad magacaaba ka garo waa qalbi dhagax waayahay ilaahu aan aqliga beeline madaxweyne farmaajo sanad kadib buu ka hadlay arintaada sanad kadib markuu ka hadlay waa xilligii lagu qabtay iyo xilligii farmaajo ka hadlay arintaada sanad baa u dhaxaysay aniga huba wuxuuna yiri waxaan raacsanahay go'aankii baarlamaankuna qabashadaadii wuxuu ku tilmaamay waa la ogaa ururka oo lafna waxay yiraahdeen argagixisa ma waa urur gobonimo doona haddaba inta miyaadan ku caafimaadin markuu madaxweynuhu go'aankii baarlamaanka raacsanahay oo miyaadan aaminin in ra'iisul wasaaraha iyo sabul shuur arinta wateen bise ilaa maanta farmaajo xagga negatifku kuugu safe gareysan yahay haye waa su'aal fiican horta haye madaxweyne farmaajo kama hor iman karin baarlamaanka go'aankiisa waan gartay ma hor istaagi karin soo kama hor iman karin waan gartay hadduu ka hor iman lahaana asaga uga baqay booskiisa asaga naftiisa uga baqay taa horta waa mid waan gartay midda kale waxay ahayd markuu dhageystay go'aankii baarlamaanka oo arkay inuu golihiisii wasiirada iyo ra'iisul wasaarihii dib u fadhiisiyo oo yiraahdo aan ka noqono go'aankeeni aan ku shaabadaynay walaalkeen inuu yahay argagixiso oo qirno inuu san ahayn argagixiso khaladna aan ka galay taasa laga rabay waa runtoodii waa beentood isagoo mid waxba kama bedeli karo waa beentoodna ma dhigi karin waa runtood haddii la weydiiyay inuu yiraahdana uu ku khasbanaado marka asaga laakiin wuu lumiyay fursadiisii halka ku aadanay wuu lumiyay marka tuu kari karayna ma uusan yeelin ilaa hadda wuxuu asagu kari karay ma uusan yeelin wasa inta hanta qabala qaarka sare banaayahay taagana qabyada tahay qalabka waan sidaynaaye inta hanta qabala qaarka sare banaayahay taagana qabyada tahay qalabka waan sidaynaaye inta hanta qabala qaarka sare banaayahay taagana qabyada tahay qalabka waan sidaynaaye inta hanta qabala qaarka sare banaayahay taagana qabyada tahay qalabka waan sidaynaaye waayahay Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax
oon waraysi la yeelanaya aad buu mahadsan yahay cabdikariin oo markii lagu qabtay 3 maalmood markii laga joogaan Muqdisho aan joogay waxa ay soo gaadhay oo dhagahayga ku soo dhacday idaacadahan ka maqlay golaha abwaanada oo yiri arrinta cabdikariin sheekh muuse lagama gabi karo anigu waan ka gabiyay gabagiina waa dhageysatay inta kaga soo gudba golaha abwaanada haddaadan ogeyna hadda maanta ogow haddaad ogeyna waad ogeydina ilaahay lagama gabi karo lagama hadli karana Soomaalida way sheeganayeen taa intaasan kaga gudbay cabdikariin sheekh muuse arrin wali intii lagu soo daayay saxaafadda aadan la wadaagin oo guluc kuugu yar jirtay oo maanta aniga abwaan liirana ahaan maadaama saaxiibka xaq jira waliba aan hay adi oran lahayd bal arrintaas kula wadaagaya ma jirtaa mise waxaad leedahay war wixii jiray hore aan uga warramay meel waxaan ku kaydsanay laga weyne ay arrin aad wali saxaafadda la wadaagin ma jirtaa mise waa ka socdaa haddaad waqti isiin lahayd yaa ka soo fikri lahayd waan horta heli lahayd Allah ilaahay waxyaabo aan samayn bas laakiin wax ii kaydsanaayo aan adigu ma jiro waayay waji su'aal baan hadaba ku soo wada aan u malay waliba inay noqon doonto tii u dambeysay ku weydiiyo niyo dadka Soomaalidu meel warka ka keenay lama yaqaan waxana la yiraahdo war dugsi ma fadhiyo nin la yiraahdo Cabdirashiid Xidig oo hadda Jubaland murashax u ah waxa la yiraahdo qabashadaadii lagu weyn buu ku lahaa wuu riyaaqay waliba dadkii ku halgamayay buu gacanta ula tagay qaarkood arrinta maxaa ka jira koogta maya Cabdirashiid Xidig arrinta qabashadeeda wax loo kuma lahay liibistaan ogahay liibistayda lagalama tashanin waxana kamuunan ogeyn wuu ka ogaa in la hayo laakiin waxaan xog ku helay inuu isku dayay inuu igu yimaado xabsiga laga diiday kadibna dagaalkii baarlamaanku ay galeen wuxuu kamid ahaa dadkii hogaaminayay ilaa ay ka soo saarayeen arrintii qabashadeedii inay ahayd sharci darro wuxuu ku jiray dadkii hawshaas hormuudka ka marka wax lagu uu ku lahaa ma jirin wax baahsan ma jiro gudiga ku tarugtay way waxaas hawshayda waxa kaliya iska laha gudiga amniga oo uu shir gudoonka ahaa madaxweynuhu ra'iisul wasaaruhu doomiyaha gobolka ii sheegay taliyihii ciidanka nisa magaciisa ii sheegay Sambaloosh gudi noocaas yaa watay arrintaana iyaga laftigooda qayb ka mid oo aan arkay ay ii sheegeen inay Sambaloosh aniga xabsigu ugu yimid isagoo runtii dhibaatada ii geysteen mid ka badan ay u qorshaysnayd in halkaa la igu geysto iyo halkaa igu yimid waan gartay wixii marka wuxuu i weydiiyey ma waxaad u malaynaysaa ani keligay inaan ku dhiibay waxaan ku yaa i dhiibay baan ku haye aniga yaa i dhiibay oo kugu weheliya adiga inaad dhiibto intan aan sheegaya baa isaga isha waxaan ahay gudiga amniga oo gudoomiye ka yahay madaxweynuhu laakiin laftiisa ay dhahaya warnabaaday weey marka dadka laguma khaldami karo intii markaa joogtay ee gudiga amniga ku magacaabay waayahay aad baad masantahay taariikhdu waa shay tigtigan oo tallaabsada tiiri adag tiray gaabixiya waa tilmaan qaran tiimbira sidii taangigiiyo wasbiraal tolan tartiib qoon u furay iyo la waa ruux tafaafula iyadaa tigaadisoo naflaha way tukubisaa tawaad iyo khadbayladoo lama taageero ruuxii isla taariikhda intaad furfurtaad waxa ku jira ka bixin oo aad wax kale oo foojariya aad gelin walayna kuu suura gelin daawadayaal dhegaystayaal barnaamijkeennii oo gabagaba ah anigii u mahad celinaya nafti hure cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax ana u mahad celinaya waqtigiisa qaaliga ah ee uu siiyey iyo sida uu sharfay ee waraysiga ii siiyey haddana bal waxaan jeclaan lahaa barnaamijka magaciisa inaan idiin fasilo barnaamijka waxaa la yidhaha ficil qaawan iyo fayl qarsoon ficilkii lagu sameeyey nafti hure cabdikariin sheekh muuse wuu qaawan yahay waa la wada arkaa wax tallaabaana lagama qaadin waa dembi dhacay buu ahaa dembi qaran buu weliba ahaa wax tallaabana lama qaadin marka wuu kuu fasilan yahay haddaadan dhakaweynahayn oo iga leecagulee ficil qaawan iyo fayl qarsoon intaasaan maanta cabdikariin sheekh muuse aad baad u mahadsan tahay waqtigaaga qaaligeedna siisay daawadayaal dhegaystayaal barnaamijkeennii ficil qaawan iyo fayl qarsoon maanta intaasaan kusoo gabagabaynayaa barnaamij ka lamida intaanu ku kulmi doonno idamka ilaa dhammaantii waxaan idinkaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wabilaahi tawfiiq aad baad mahadsantahay Soomaalidu qab iyo kibir marna qaadan mayso Soomaalidu qab iyo kibir marna qaadan mayso inta qaalinkoodii walaa kale ku gurto oranjiyo bisada xuni isugu qayla gaysteen
أبوراد ميسي Somalidu qab iya kibir marna qadan mayso Somalidu qab iya kibir marna qadan mayso Inta qali kodi wala kale kuburto Oranjiyo bisadahuni isuqa ila gaysteen Abawradin mayse